jooji shantan dabeecad haddii aad leedahay noloshaada ay haleynayaan. waxyaabaha qaar ee dabeecadda inoo ah ayaa laga yaabaa in ay yihiin kuwo waxyeello iyo dhaawac u geysanaya nolosheenna iyo qaab nololeedkeenna. haddaba maxay yihiin dabeecadaha aad u baahan tahay inaad beddesho? muuqaalkan waxaan uga hadlaynaa 5 dabeecad oo ka mid ah kuwa shakhsiyadda qofka dhibka u geysta ee nolosha ka hadleeya. wax walba inaad shakhsiyan u qaadato. wax walba oo la dhaho ama haddii ay dadka hadlaan ma isku qaadataa in adiga lagugu wado wax walboo la sheego? dabeecadda xun ee nooca ah haddii aad leedahay dhibaatooyin badan ayay ku horseedi kartaa. waxay kugu sababaysaa inaad u qaadato dunida dhan inay adiga lid kugu tahay oo kaa soo horjeedo. xasiloonida ayay kaa qaadaa walwal iyo niyadjab joogto ahna saaxiib iyo rafiiq ayaad noqonaysaan. laakiin xaqiiqada ayaa ah in sidaad u malaynayso ayna waxba u jirin. run ahaantii haddii aad dabeecadda nooca aad leedahay, waqtigaadii, enerjigaadii iyo fikirkaagiiba meel cidlo ah ayaad ku dhumisay. waa adiga qaad fikirkaaga, ma jiro qof kula fiirsanayo wax walbo. haddii ay dadka wax kugu dhahaan, waxaa macquul ah inayna ula jeedin sidaad u malaynayso ama aad u qaadatay. keliya adiga ayaa isku barobaleeminaya. adiga ayaa wax walba si shakhsiyan ah ama in adiga lagugu wado u qaadanayo, halka ay xaqiiqada tahay inaan adiga lagula jeedin. haddii ay wax dhacaan, waxaad isku malaynaysaa inaad tahay qofka sababay ee sababteeda leh. laakiin waa inaad mid ogaataa, nin walba noloshiisa iyo howliisa gaarka ayuu ku mashquulsan yahay. waxaaba dhici karta inaad maskaxdoodaba ku jirin, adigana waxaas aanbi jirin ayaad noloshaada u dhibaysaa. midda kale ayaa ah in haddii ay xitaa kuula jeedaan ayna ahayn qofka sababteeda leh, waxay ka soo maaxataa iyaga dhibaatooyin haysta ee ma ahan inaad adiga sababtay. haddii ay si qaldan kuula hadlaan, waxa haysta dhibaatooyin shakhsiyeed ee adiga sababteeda ma lihid. haddii ay ku dhaleeceeyaan ama ay wax kaa sheegaan, qaladka adiga ma aha ee iyaga ayaan nafahooda ku kalsooneen oon ku qanacsaneen. marka labada dhinacba ma aha in ay ku saamayso adiga, keliya adiga ayaa ka dhigaya wax si shakhsiyan ah adiga lagula jeedo. u daa nolosha dadka. sidee dareemi lahayd haddii uu qof isku dayo inuu noloshaada maamulo oo arrin walba oo aad qaba isdhahdo uu ku lug lahaado? ma jeclaan lahayd inuu qof kale arrimaha aad qabanayso soo farageliyo oo uu gacan ku yeesho? dabcan maya weeye. adigana midtaa la mid ah ha ku samayn dadka. noloshooda u madax bannaanee. ha isku dayin inaad qof kale ku khasabto in wax aad jeceshahay uu kuu sameeyo, waxa aad necab tahayna uu ka tago. maxaa waxaa qoorta kuu geliyey eed u rabtaa inaad nolosha qof kale maamusho? no way. ma og tahay inta aad qofkaas saamayn ku yeelo isleedahay inaad noloshaada ku ciyaarayso? nolol adag oo farxad la'aan ah ayaad gelaysaa haddii aad nolosha qof kale dusha iska saarto. waxaad isku dayaysaa inaad go'aamadooda saamayn ku yeelato, howlahooda aad farageliso oo aad si hoose qofka u maamusho. laakiin waxyeello ayaad geysanaysaa labada dhinacba. waxba culayska naf kale ama qof kale dusha iska saarin. taada un maarayso, kama baxdid culays kale. inta aad nolosha qof kale ku mashquulsan tahay, dhibaatooyinkaaga gaarka ah ayaad iloobaysaa oo dayacaysaa. caradaada ama xanaaqaada oo aad kontarooli weydo. haddii aad tahay qof marka uu xanaaqo aan kontarooli karin caradiisa oo dhaqso u carooda oo aad dadka ku qayliso ama aad waxyeello u geysato, ha noqoto mid af iyo mid kaleba, waxaad ka shallaynaysaa marka ay carada kaa tagto. wixii aad samaysay ayaad ka qoomamaynaysaa. inaad qalad samaysay ayaa kuu muuqanayso. haddaba ha noqon qof ay carada ka soo horayso. go'aan ha qaadan markaaad caraysan tahay. keliya isaga tag meesha aad joogto marka lagaa caraysiiyo inta ay carada kaa tegayso, adigoon waxba samaynin oo aan qayliin. afka xiro, isaga fogow meesha lagaaga caraysiiyey. hawo qaado, isdeji, isku day inaad xanaaqaaga hoos u dhigto. kadibna ka fikir wixii aad samayn lahayd, sidii aad arrinkan u xalin lahayd. arrintan waxay kaa difaacaysaa inaad ku kacdo ficillo aad ka qoomayso noloshaada, ama aad waxyeello u geysato qof kale noloshiisa, saamayn xunna aad ku reebto. waxyeellada midda muuqata ma aha keliya ee tan qalbigaad u geysanayso ayaa ka daran. weligeed qofka maskaxdiisa kama go'ayso hadalladaada, xitaa haddii ay ku cafiyaan. waana sababtay u wanaagsan tahay inaad ficiladaada ka fiirsato intaad waxba samaynin. hadallada dhaawaca ay geystaan ma aha kuwa hara. waa sida musbaarka oo kale oo haddii meel laga taago, marka laga saaro dhaawacii weli uu ka muuqdo. in adiga oon waxba samaynin aad ku riyooto ama aad sawirato adigoo jooga noloshii mustaqbalka aad ku riyoon jirtay, u fiirso, weli waxba maad qabanin. laakiin waxaad ka fikiraysaa oo aad sawiranaysaa wixii aad jeclayd inaad gaartay. waxaanan hadda samaynayaa, halkaan baan marayaa, saanaan wax yeelayaa, meeshaasaan gaarayaa. laakiin weli waad fadhidaa oo waxaad qabatay ma lahan. waqtigaada dhanna arrinkan ayaad ku dhuminaysaa. intii aad uga shaqayn lahayd gaaridda waxa aad ku riyoonayso, inta aad waqtigaada dhan ku dhumin lahayd riyada, beddelkeeda uga shaqeeya gaaridda waxa aad jeceshahay aad ku riyoonayso. fikirrada noloshaada halaynaya. waxaa ku soo marta inaad arrin ka walwasho oo ay maskaxdaada ku soo noqnoqdaan, oo laga yaabo inay maskaxda kaa qabsadaan.
waxyaabo farxadda kaa qasa ayaa maskaxdaada ku soo dhaca ama xitaa aad la ladi weydo sida waxaad samaysay inaad soo xasuusato oo aad isdhahdo way qaldanaayeen waxaas iyo waxyaabo badan oo negatiifa oo fadhiga kuu diida ayaa laga yaabaa inay maskaxda kaa qabsadaan fikrada nooca ah waxaa laga yaabaa inay ku dayn waayaan oo si walba aad isugu daydo inaad isku mashquuliso arrimo kale weli ay maskaxdaada ka bixin haddaba sidee baad ku xallinaysaa arrinkaa sidee baad u maaraynaysaa sidee ayaad arrimahan uga firaaqayn kartaa maskaxdaada si aad maskaxdaada uga firaaqayso fikrada negatiifka oo aad u nafisto meel ku qor waxa ku welwelinaya oo aad ka harsan la'dahay waxa kaa welwelinayana u oggoloow inay bannaanka u soo baxaan markaad u oggolaato inay soo baxaan fikradaha nooca ah waxaadna dareemaysaa in waxaas fadhiga kuu diiday ayna ahayn sidaad u malaynaysay